وبرارجين يدعو قف والبو كواجب كوا وحنالك الراعينا حلية برواقضة waxaa dhacda oo badana aynu baranay ilaahay kama dhigay in marka barwaaqo dhacdo ee wanaag dhaco ee caleenta iyo doogu soo baxo ee barwaaqada la xirqado in dadkeenu ay isku yaacayaan oo ay sameeyaan wax aad iyo aad u xun oo la yiraahdo marka aanooyin iyo aana qabiil iyo waxba bari leeyay waxyaabaha caynkaasa ilaahay waxaan ka bareeyaa inaanu sanadka kan oo inaga kor qaado waxyaabihii hore u dhici jiray barwaaqada ayaynan iskaga qaylinin aana waxba tarimayso qori la qaato qof la soo dila waxba tarimayso waa arag baynu ku nahay xabaaluhum baa la camiraya nimayo reer Soomaaliland la yiraahdaa intaanu ilaahay ka yaabno qof walba wixii ku xoqanaya iska samir ilaahay u daaso ka xaajayso laakiin yaan barwaaqada iyo nimcada dhig lagu daadinin qof muslimin la dilo in badan bay culimada iyo diintu inoo sheegtay arinta waa ka digaya way dhacdaa ilaahay waxaan ka bareeyaa beelihii dharkeen geeyo iyo saaxdheer oo iyaduna dhulka ku haya oo nabadoodii gacanta lagu hayo in ilaahay ku adkeeyo in ilaahay uga baryeena waxa jirta asxaab baa jira siyaasadda aynu leenahay reer Soomaaliland niyo waxaad moodaa 15 sanadood ee hore ee aynu xisbiyada samaysanay wadadii la mariyay in la marayo ayaa muuqata waxana marba laga waantoobayo laga bayra wali iscaygi iyo ismaagisti iyo yuuyuutinkii xisbiyada ayaa socda waniyo baasha in la bedelo laga waantoobo ayaa wanaagsan waxba tari mayso hebel caay hebel baana u jawaabay waxa la waxay tarisaa ma jirto waana boorin baa laga qaadayaayo 15 sanadood baa la isrideeyo la iscaalaqayo waxa fiican inuu si kale u bedelo marka anigu Yuusuf gogoyahan aniga iyo dhalinyaro badan iyo aqoon-yahano badan oo reer Burca ah oo ciid walba leh gobolka dhan ka kooban barnaamij baanu jecelahay inaanu u soo deeyno murashaxiinta jagada ku tartamaysa madaxweyne ee reer Soomaaliland saddexda murashax bay khusaysaa waxaanu jecelahay inaynu ka bedelo habkii hore لأنه واحد شرطة واحد لقليه وبريسيدنشال إلكشن بالقليه صدق nin baa wardiyo candidate masiirka umada iyo halka taladu ka go'aysa waa saddexdaan kulmiye halka iska dhig waa xisbi musharaxiisu soo saaraya wadani halka dhig wicid halka dhig saddexda murashax ee soo baxay ayaa waxaan doonaynaa inaynu u qabanno political debate wax la yiraahdo oo aynu tartansiino oo siiqada iyo hadalka ku tartansiino iyadoo focuska la saarayo baahida wadanka taala waxa qabyada ah inaga dhiman iyo wax la higsanayo marka waxaan jeclaan lahayn iyadoo hawshii ay noo socoto nidaamka iyo sharciga aanu ku ilaalinayno ardayda jaamacadda iyo ganacsatada iyo culimada iyo aqoonyahanka reer Togdheer inaanu waanu wadnaayaanu markaanu isla garanno inaanu u qabanno odayaasha saddexda candidate xisbiyadu soo saareen inaanu political debate wadaag siyaasadeed u qabanno oo nin walba la weydiiyo baahida wadanka bilbetalan baahida reer Soomaaliland waxa lagu soo koobaa lama soo koobi karo laakiin 30 qodob baa ugu waaweyn waxa uga meel yaala nin kasta oo tartamaya oo dal u tartamayo madaxweyne doonayana waxbuu focus ka saara baahida focuska la saarayo ee la doonayo inay kamida dhaliyaan oo ay ka hadlaan ayaa wanaagsan barnaamijka kulmiye halka iska dhig barnaamijka wadani halka iska dhig barnaamijka wicid halka iska dhig barnaamij warqad ku qoran iska dhig wax weeye you going to be president of Somaliland baad ku socotaa murashaxyaasha xisbiga maxaa focuska aad saaraysaa doonaysaa inaad wadanka ka qabato bilmetel nabadgelyada iyo amaanka maxaad ka qabanaysaa markee baa la oran karaa dalwa amaan security secure peace iyo peaceful intaasi candidate murashax ma ku kala saaran tahay afooyinka dabiiciga maxaa kaaga meel yaal soo noqnoqda sida abaaraha iyo nabad guurka dhaqaalaha sicir baraka iyo lacagta reer Soomaaliland ee qiimo dhacday ee qof waliba uu dollarka sito maxaa kaaga meel yaala arrimaha itiraafka iyo xiriirka caalamiga maxaad ka qabanaysaa candidate kaaga meel yaala adigoo murashax xisbiga matalan murashaxi madaxweynenimada aad tahay maxaad ka qabanaysaa immigrationka iyo migrantiga dadka soo haajiraya ee wadanka ku soo haajiraya dadka ka haajiraya iyo qaxootiga maxaa kaaga meel yaala sidee baad u maareynaysaa waa dhibaato taala iyaduna oo meesha taala musuqmaasuqa iyo corruptionka maxaa kaaga meel yaala ku dhaqanka sharciga iyo kala dambeynta maxaa kaaga meel yaala xornimada dadka iyo madax banaanida saxaafadda maxaa kaaga meel yaala waxyaabaha waxba focuska la saaraa mid aniga kuwan oo kale wayga tusaale
marka baahida wadanku way sarantay marka waxaan doonaynaa inaanu tartansiino iyadoo oo lagu soo koobayo baahida reer Somaliland la soo qodobaynayo la soo koobayo dadka aqoonta lehna la infeed gareynayo oo loo yeedhayo waxaan jeclaan lahaa gobolkii ugu horeeyay inaynu noqono markaynu nidaamka sharciga ama raweeye ee aynu dawladana marre ee layno fasaxo inaynu u qabanno murashaxiinteena bisha ugu horeysay ee July rabadaan dabadeed inaynu u qabanno political debate oo aynu burco ugu qabanno